gabadh masaakiina oo ciyaal iska haysata oo iska rafaasan ayaa social media la geliyay si loo soo caawiyo ilaahay dartii dadka sameeyay inay soo geliyeen waxay ugu talagaleen qofkaas in ilaahay dartii wax lagu soo siiyo qofkaas waa qof hooyo iska masaakiin ah oo aan xitaa kala garanaynin dadka meelaha kala jooga number soo wacay waxaa lagu yiri waxaan ka soo wacay Sweden waxaan doonayaa inaan ku caawiyo waxaan ku hayaa gaari bas ah oo carruurta aad ugu shaqaysan kartid ما شاء الله قفك كور سيدنا نقولنا فرحت قفك يكلا بدل يا هوي الله إلهي يصدر ما شاء الله إلهي هكو عاوي دعاء كب حدي تاسبب بالعكس هذا كنا قنطنتين وحيت رواية waxaa kadibna inta loo raaciyay waxaan kugu soo xirayaa ninkii darawalka ahaa ee gaariga hayay kadibna gaariga ayuu kugu wareejinayaa sababta ma taqaan gaariga lagu siinay hooyoy in ilmaha loogu shaqeeyo oo aad idinku income ama wax idinka soo galaan ayaan ku siinayna ka waran hooyo masaakiina oo waxba haysan oo sidaas lagu yiri kadib waxaan soo wacay lambar kale wuxuu u sheegay inuu yahay darawalkii gaariga hayay wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan soo kaxeeyo gaariga oo aan ku keeno lacag $400 iyo ziyaado ah ayaan doonayaa inaad soo dirtid si aan kugu soo kaxeeyo xagee joogtaa ayaa la yiri marka qofkii noocaas ah la yiri oo gaarigan u yaala wuxuu yiri waxaan joogaa Jalalaqsi oo aan gaariga ka soo kaxeynaya gobolka Hiiraan gabadhuna waxay joogtaa Hargeysa marka waxaan doonayaa intaan soo dhaafiyo lacag soo bixiyo marka waxaan doonayaa $400 iyo ziyaado inaan soo bixiso ilaahay amarkii gabadhi ma haday garanaysay islaantu way soo wacday waxay tiri hooyo arrintaas ay jirta maadaama sidaas ay tahay waxaan rabaa lacagtaan dirayaa hooyadii marka waxaa jirta marka weekend yabo jiray marka ururin dad ilaahay dartii dad wax u soo baxsaday hooyada numberkeeda lacag ku soo diray oo lacag ilaa $600 adiga qiyaastii sida ay la tahay telefoonka ku haysatay waxay go'aansatay marka waxay sir lacagtan baskaas lagu keeno ilmaha ugu shaqeyso lacagta inay dirto ma haday soo wacay tir hooyo waxaan rabaa numberkan waxaan waa fahmi waa Sweden inuu joogay ayuu Sweden inuu joogaya kaale yacaawin kadib wuxuu sameeyay mahad numberkii markuu arkay ogaaday inuu numberkan number local Soomaaliya yahay ayaa sheekadan marka dhex martay qofkii telefoonka hayay iyo mahad waxaan wacay qofkii kadibna waxaan ku iri walaal gaariga aad rabtay inaad keentid reerka waxaa horta ugu horeysa in qofka loo sameeyo warqadii mulkiyada ee lahaanshiyaha ku wareeji marka mulkiyada ay nagu wareegto kadib ma habka soo marinay anaga naqaana si marka hawshu u fudaatana gaariga kaxee balweyn baa ku dhaway gee meel kale hageena Hargeysana keeni halka gee dad baa jooga ku wareeji waxaan doonayaa koox ku inaan run sheegayaan run ma sheegayaan kadib wuxuu ku dhahay kadib wuxuu yiri waxaan doonayaa balweyn si aan u geeyna $120 keen wili lacag la rabaa ayaa la rabaa waxaan kadibna ku niri markaad balweyn geysid ayaan lacagta ku siin doonaa si dabar waxaan la sameyn karay macnaha wuxuu arkay marka in lagu fahmay marka arrintaas waa dhac يعني dadban oo dadka masaakiinta ah lagu dhaco si farsamaysan lagu dhaco hooyada lacagta laga ma qaadin laakiin waxa dhacday qiso kale oo dad xanuunsanaya qoys haystay lacagtii lagaga qaatay waxa dhacday islaana waxay haysatay odageeda xanuunsana uliyal iska aha tacbaan social media la geliyay la soo caawiyo ilaahay amarkii dadku waxay heli karaan $10 $20 si loo kala loo caawiyo lacagta marka waxay ka arkeen numberkii wala soo wacay heblaay hebel ma tahay ها هوي وميل heblaay joogta ha oo qof xanuunsan haysata ha waxa jirta waxaan ahay dad cadaan la shaqeysa marka waxaan ka aragnay social media ka aragnay dhibaatadii in haysato waxaan rabnaa dibadda inaan u qaadno odayga xanuunsan marka ka waran waxay u aragtay reeltu khadar ilaahay u soo diray waxay u aragtay wax farxad u yimid kadibna aad bay ugu farxday bas waxay rooga ma santii diyaaranahay lagama waalin maalin kale ku xigtaa la soo wacay waxa la yiraahdo hooyo dadkii aan nahay ninka qaadiyay diyaar gareen waxay ka tafdan waa lagu soo celiyay ma diyaarisha haye airportka joogna waan soo tagnay alxamdulillah waan noo soo qaadaysaa waan noo keenaysaa laakiin hooyo arrin oo aan ku talagelin maadaama dad cadaan nala socdaan ayaa dhacday lacag baa airportka loo qabsaday oo ah lacagta soo gelitaanka anaguna cash ma wadano sidaa daraadeed airport kama soo bixi karno ilaa lacagta aan bixino marka hooyo meeqa loo baahan yahay lacag milyan iyo ziyaada oo cash Somaliland shilling ah oo u dhiganta adigu $150 $200 ah inta u dhaxaysa bas hooyadii waxay tir haye hooyo marka waxay tir lacag soo dira numberkan ku soo dir numberan ku sheegaynaa isug number anaga dadka ma naqaan number loo soo yeeray marka kadib loo soo sheegay waxa la lacagta ku soo shuba marka meeshaas hooyadii dad irkaale numberkan lacagta ku ma taqaan waa loo habeeyay
lambarkii lacagta ay soo sheegeen dadka qofka soo sheegeen ayaa loo diray ayaa lagu shubay kadib maxaa dhacay kadib lambarkii waa la damiyey laga soo wacayay raadintii kadib waxaa la galay lambarkii lacagta loo lacagta diray lagu jiray ayaa la hayaa wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay sarifle dad baa ii yimid lacagta wuxuu yidhi lacag baan kusoo kaas dirayaa nasii waana siiyey way dhacdaa eber ma aragta adiga ana ma arkay ma aragta taasoo kale dhacdooyinkaas marka waa badan yihiin kaliya ma aha waxaan anaga hadda sheegayno kaliya ma aha anigoo igu dhacday aad iyo laga yaabo adiga inay kugu dhacday qof kale ay ku dhacday adigay kugu dhici kartaa waxaa laga yaabaa adiga in lagugu yidhahdo waxaan haynaa caawimaad la rabo in la gaarsiiyo dad masaakiina gaariga soo qaadi lahaa kiradiisa bixi gaari baa dhexda lagu qabsaday waxyaabahaasaa dadka lagu dhacaa anaa laygu yiri maaha jeegaan hayaa lacag ma hayo into sheekadu way dheer tahay laakiin muhiim waxay ahayd dad bad nin maadaama nin wariya oo la yaqaano oo maxaa tahay waa balaadaas lagu yiri haye waxaan rabnaa dad inaan caawinaadaas u gudbiso gaari teendooyin alaab wax wada waay marka waxaan ku jiraa xarunta mid kamid ah UN-kan ku jiraa ma soo bixi karo maantaan imiday numberka marka wuxuu iga soo wacay WhatsApp-ka waana number Germany ah ayuu iga soo wacay marka waxaan rabnaa alaabta inaan la wareegto waraan ma taqaanide seel alaab igu dhiibay ganacsada ma ahi ma taqaanid waay su'aashan weyd maya adiga nin wanaagsan wariya dad balaabada hay waayahay bal horta alaabtaan arko iyo dadka wada waa iska fahamsanahay markii saa leeyihiin ba aniga jaa dhagaha taagnan ogahay kadib waxa dhacday wuxuu yiri igu soconiyahow anigu halkaasaan joogaa jeegaan hayaa lacag $200 aan hadda u baahanahay imow xaruntii inka imow jeega aan ku dhiibo ka soo saar nin soo wici doonaaye isagana ina si habeysida rabaa oo lacagta si dhiib fasaayir ya aniga filimkan adiga hadda sameynaysid abti waxaas mar hore ayaa laga soo gudbo hore u soo arkay waxaa kale oo laga yaabaa in lagu ogaado inaad u nugushahay dadka raadiyo dhoofka inaad tahay waa lagu soo wacaya waxaa lagu sheegayaa fiisa in lagu hayo kadibna waxaa lagu oranayaa lacag soo saar waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo bakhtiyaar si baad ku guulaysatay lacagtii lagu saari lahaa oo akoonka lagaga soo soo saar waxaasoo dhan soo duduub qof walbay ku dhici karaan aday kugu dhici karaan adigu haddaad tahay ka sameeya ilaahay ka baqo ilaahay ka cabsi war waa la dhimanayaa joog ha samayn waxaan ilaahay dartii u dhaaf adiguna haddaad tahay kan u nugul weligaa qof aadan garanayn oo ku soo wacay ha siin lacag hadduu ku yidhahdo waxbaan kuu hayaa waxaa iibi lacagta iga rabtid ka gooso kadibna ii soo dirle sida ugu fudud ama shirkadda soo dhig nambarkeega kusoo qoro kusoo dir markaas aad iyo abtiyaa lagu gaadin please wallahi arrintan waa manaxyaal kale ayaa jiro saa ku shaqaysa si kasta lacag aadan saa ugu dhididin oo aadan shaqaysan abti cid ku siinaysa male waxaa yidhi hooyadaaba ha hayse heybisay kaa rabtaa yacni dadkaagaba hooyadaaba hayse inaad wax weydiisato iska ilaali saaxib ya axmed sadiiqa filinka duubaya tan iyo kulan dambe nabadgeliyo salaamu calaykum